Kadib hadal uu ka dhawaajiyay Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre kaas oo ku aadanaa in la kansalo imtixaanaadkii shahaadiga ahaa ee ay sida guud u qaadaysay Dowladda Federaalk Soomaaliya ayaa maanta waxaa lagu waabariistay banaanbaxyaal xooggan oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Dhammaan ardayda fasalkan Form 4 ee ahaa shahaadiga galayayna imtixaanaadkii dowladda ayaa cabasho weyn ka muujiyay wixii dhacay habeennimadii xalay ahayd. Marar badan oo Somali Cable TV ay dhex qaaday in ka badan 10 arday kuwaas oo muujinaya heerka cabashadooda, waxa ay inta badan carabka ku dhufanayeen in Cabdullaahi Goodax Barre uu yahay wasiir aan la tashan asxaabtiisa kaas oo ka yimaaday cumro kadibna go'aan degdeg ah gaaray. Ardayda dhammaantood waxay ka cabanayaan qarashkii ay ku bixiyeen baabuuracay imtixaanka. Tusaale, mid ka mid ah kuwa dibadbaxayaasha ayaa xaqiijiyay inuu degan yahay Kaaraan imtixaankan uu galayo number 4, taas oo niyad jab weyn ku ah maadaama uu 3 maalin oo imtixaanka socday khasaaray lacag badan oo baabuurac ahayd, taasna aysan awoodin in wasaaraddu dib u bixiso lacagahaas. Sidoo kale dadka waxay isweydiinayaan waa kuma shaqsiga bixiyay imtixaankii dowladda, ma maamulayaashii iskuulaadka, ma baartiyadii hoose ee hoos imaanayay wasaaradda waxbarashada, mise mas'uuliyiin waaweyn oo ka tirsan wasaaradda waxbarashada Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, Cabdullaahi Goodax Barre ayaa si indho la'aan ah u kansalay amase u joojiyay imtixaankii shahaadiga ahaa oo ay ardayda dhan galayeen, kaas oo cabasho weyn kala kulmay bulshada dhinacyadeeda kala duwan. iyadoo saakay inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho ay ku waabariisatay isku soo bax ay sameeyeen ardayda galayay imtixaanaadka dugsiga sare ee qaadaysay dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen isku soo baxooda in uu ku saleysan yahay hadal wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya uu xalay ka dhawaajiyay oo ahayd in ardayda ay ku laabanayaan imtixaanaadka. qaar ka mid ah ardayda oo la hadlay TV-ga Somali Cable ayaa waxa ay shaaciyeen in aysan marnaba ogolaan doonin in imtixaanka ay dib ugu laabtaan, ayna ka xun yihiin hadalka wasiirka. aniga ku hadlay afka ardayda Soomaaliyeed magaceeduna Ciise Cali Cumar. wasiirka waxbarashada waxa ku dhaleecinaya asigoo inta soo sanaa waxbarasho naga soo dhiibin ee dawladda waxbarashada siinin, anagoo 3 maalin anagoo sooman oo dhafar indheen oo ka muuqdo oo inta soo maalmeed oo rafaadeenay oo nala baaray oo boor ku socon oo ina isgoos ku degan isgoos kale ka sii luweedeynay oo meesha dad tagnana nala sii carqaladeynay oo 9 saac oo ka soo bixin imtixaanka sidoo noogu dhaha anaga inoo dhahay imtixaanka ku soo noqdo. taada kale asigoo wasiirka waxbarashada ee sababta oo asigoo ardaydiis inta soo kun oo arday ay tahay sidoo ku aadaa shir looga hadlay urur madaxweyne. qaladka oo gal waa qaladkaas. qaladka kale oo gal waxay tahay asigoo imaaday anaga dawladda in u tagnay ina banaan baxnay ma ka soo qaadan imtixaanka sidoo uu soo galay imtixaanka ina tagnay anagoo banaan baxayna ma soo qaadan sidoo noogu dhaha xeed ardayda waa inay ku soo celisaa imtixaanka. wasiirka mid kale oo dhaleeceen kale way jirtaa. wasiirka markii uu maaday waalidiintana wuu carqaladeeyay wuuna afgalagaadiyay. dowladda Soomaaliyeed waxa ku xusanaynaa inay xaqeena soo dhixiso 12 sano hooyaday miyaayo leeyahay markay bil kasto $17 oo iskuulka rafaada ku dhibtaa markii aniga oo dadaalka ma gaaray in hor istaago xaq miya xukuumadda xasad qeere anigana in xaqeenu ku tunto anaga arday Soomaaliyeed oo maanta u soo baxnay inay imtixaan galno oo haddana anaga sooman meesha inaan nasano inay yiraahdaan maanta ma galeysaan oo ma waxba soconay ma lahan qashbaa dhiib waraadaa dhiibtay oo dadkaaga dhiibay midda kale waxaan ku sheegaynaa anaga arday Soomaaliyeed imtixaankaaga maramno. waxaan meeshaan ka sheegayaa in cadaalad darro uu la sameeyay cadaalad darradaas oo ah waxa galnay 6 maado 6daas maado waa la kansalaa Allah waalidiinta waxa ka baxay baawraac waa bil Ramadaan wax lagu jiro bil Ramadaan lagu jira waxaan la sameeynaa gaari raac waxa naga soo baxay waxa la dhahay wixiina kansal waay ma soconayso saaki ilaa haddana qof wala tashta inay jin waa u maleynaa sababtoo ammaan loo isku soo istaagay wuxuu ka imaaday safar imraa ka imaado sheegay imtixaan kansal waay u dhahay saaka banaanbax aan sameynana ilaa hadda xabadaan ugu wadaa geedka naga muuqda u jeedaan sa orafaasanaanay xabadan waan ugu wadaa habeen imaan waan u dhafrin imtixaankan 6 maad see loo kansalaa marka ma soconayso.
imtixaanka wasaaradda lacag lagu siiyaa dowladda lacag ku siiso nin wasaarad ka shaqeeya si ay ugu dhiibin jaamacada qabiilisnimada iyo adduunnimada oo wada asaa ka wada dowladda waxay dishay 2 arday xaggeena jiifaan waxaan rabnaa xuquuqda in la soo gudo goodax bar waa ka cambaarayna dooni mayno imtixaan gali mayno imtixaan waxaan arday Soomaaliyeed arday shay oo kale taayaan lagu dhaqmaa xabada ayaan lagu soo furay halkaas anigoo taayaan lagu soo xabaday arday Soomaaliyeed anagoo xaq uma lihin miyana dalka wax ku leenahay Zainab Xaadow Somali Cable magaalada Muqdisho waa kan Cabdullaahi Goodax Barre oo ka hadlaya qaabkii iyo wada tashigii wasaaradda ay u kansashay imtixaankii shahaadiga ah ee ay qaadaysay dowladda federaalka Soomaaliya oo ayna qaabilsanayeen wasaaradda waxbarashada Soomaaliya taas uu hogaamiye ka yahay Cabdullaahi Goodax Barre fadlan subscribe channelka like noo saar subscribe tana nagu caawi adigoo aad u mahadsan daawasho wacan warka wasiirka wasaaraddu markay la tashatay inta bahwadaaga waxbarashada ah waxay wasaaraddu go'aan ku gaartay in imtixaankii dhammaantiis la baaba'sho ee dib loo qaado maxaa yeele macquul maaha imtixaan saddex maalina imtixaanku socday 6 maadana waa la qaaday 6daba suuqa yiilan hal meelayna ka wada imaanayo macnaha 90 iyo dheeraad goobood sidii loogu talagalay u shaqeeyeen laakiin goobaa go-aan waxay gaartay inay fashiliso meelaha qaarkood waxaad la socotaan in lacag lagu kala qaadanayo waxay aad nasiib daro in imtixaanka ummadda Soomaaliyeed lagu qiimeynayo oo qofkan guri ka raadiyo weliba bil Ramadaan aaday nasiib daro u tahay waxaa nasiib daraa in waalidiintii qaarkood ay ka qayb galeen iibinta imtixaanaadkaas waxaa nasiib daraa arday dadaalay inuu soo dhinac fadhiisto mid isku hadlaynayo inuu soo gatay imtixaan haddaba wasaaraddu waxay go-aankaasi gaartay imtixaanka berrito ma jiro kuwii hore loo qaadayna waa la baaba'shay imtixaan jiro ma aha haddii eebbe idmo imtixaankaas dib aan u qaadi doonaa maalinta ay tahay 27 bisha wuxuuna socon doonaa ilaa 31 bisha 5taas maalin uu socon doonaa wasaaraddu waxay ku tala gashay markan inay sidii hore si ka duwan oo ka adag ay imtixaanka u qaado waxaa markan suuragel noqon doono 5taas maalin inaan wax social media waddanka uusan ka shaqayn doonin